soo dhawaada qiyaarta biisada oo kamid ah cuntooyinka maanta dunida loogu jecel yahay gaar ahaan da'yarta ayaa cimrigeeda inta la og yahay waa 200 oo sano waxaase la aaminsan yahay in ay jirtay muddo intaas ka badan tusaale ahaan faraacinadii iyo masaaridii hore iyo Greega waxa ay sheegeen taariikhda cunto la mid ah midda biisaha taariikhyahankii Cato the Elder oo ahaa qoraaga buugga The History of Rome in 3rd Century BC oo kaga waramaya taariikhdii Romaaniyiintii ee 3 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ayaa sheegay cuntooyin aad ugu eg biisada si kastaba ha ahaatee tan iyo qarnigii 19aad ee miilaadiga waxa magaalada Naples ee dalka Talyaaniga laga isticmaali jiray biisada oo aad loo jeclaa waxaana bilaabay cunto kariye caan ka ahaa oo la jiray Rivalo e Pasto oo isagu lahaa maqaaxib lagu magacaabo Pizzeria di Pedro e Pasta Cosi oo micnaheedu noqonayo biisada Petro cuntadeeda ayaa kugu filan haddaba maadaama uu biisaha loo aqoonsaday inay tahay cunto uu Talyaanigu asal ahaan bilaabay waxa uu midowga Yurub ku daray waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka u ah dalkaas sanadkii 2009kiina waxa uu soo saaray halbeeg ay tahay in loo raaco sameynta biisada nooceeda macaamiisha loo sheegayo ay tahay biisada Naples biisada waxay dunida ku faaftay wixii ka dambeeyay dagaalkii koobaad ee adduunka intii dagaaladu ay socdeen waxa Mareykanka yimid dad Talyaani asalkoodu yahay kuwaas oo dhaqankii sameynta biisada la yimid dalkaas dagaalkii labaad ee adduunka kadibna waxay biisadu noqotay cuntada dunida ugu caansan biisada waxay ka mid tahay cuntooyinka fudfudud ee laga heli karo meel kasta iyo wadooyinka waxaana Mareykanka kaliya sanadkii lagu sameeyaa 3 bilyan oo xabo oo biisa ah taasoo haddii average ahaan la celceliyana qof kasta ku soo aadayso 46 xabo inuu qofkii cuno asal ahaan biisaha waxa lagu gadi jiray meel ka baxsan maqaayadaha sida wadooyinka waxaana la arki jiray dad sida biisaha oo ka gadaya dadka wadada maraya iyo kuwa shaqadoonka ah ama dadka raacaya gawaarida maadaama ay tahay cunto raqiis ah lana iibsan karo sameynta biisaha ama marka la sameynayo waxa ay soo martay heerar kala duwan asal ahaan biisaha waxa lagu dari jiray hilib oo kor looga daray farmaajo laga sameeyay caanaha fardaha laakiin Mareykanka oo markii dambe aad u horumariyay waxa ku arkaysaa inay ku jirto hilib oo loo geeyay yaanyo